السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي شرفت لسoo dhawaada waa walaashin Warda Cooking oo idin la maalin wanaagsan, galab wanaagsan, subax wanaagsan. Maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago labaniyad qof walba sida uu yaqaano. labaniyad halkan waxaan ku haystaa maxaa la dhahaa waraangada lagu kariyo maaragtay maxaa la dhahaa xalwada ayada laga sameeyaa labaniyada. waxaan ka qaadanaynaa maxaa la dhahaa 2 qaado. waxa kale oo halkan ku haystaa sokor. isla qaadadaas ayaan ku cabiraa 2 qaado sokor ah iyo 2 qaado waraanga ah iyo 2 koob oo biyo ah 2 koob oo caano ah. caanahaasaan haystaa faadkooda aad u yar yahay. waxa kale oo halkan ku haystaa subag. subagaas ayaan meesha ku haystaa. marka isla socod wanaagsan dibka shidanayna caanaha waan soo cabiranayna. laba koob oo caanaha halkaas ku shubanay. waxa kale oo ku shubanaynaa maxaa la dhahaa sokorta. sokorta 2 qaado waaweyn waaye. waraangadana waxaan jeclaystay inaan hortiina ku cabiro waayo 2 qaado marka la yiraahdo waraangada khafiif waaye. 2 qaado oo aad u buuxbuuxdana lama rabo. marka qaadada koowaad saas ayaan u soo cabiray. koob labo labadaas qaado bis u baahanahay. waxa kale oo maaragtay ku daraya maxaa la dhahaa mac zahar wardiga iyo kuwan isku dhadhan ma isku mid ma ahan. kuwana xalawiyaadkii macmacaanka loogu talagalay mac zahar la dhahaa. Allah musta'an waxyar furka camalan ku darsanayna kaas inta soo nagu filan. waa in marka aan qasnaa istimraar u qasnaa waayo waxay ku dhageysaa waraangada qofkii yaqaan oo yaqaana ciid camal ee salka fadhiisanaysa. tartiib ina u soo kartaa la rabaa. dibka waa u gaabiyay waayo haddii hal mar maaragtay dibka uu dheer yahay burtuuray noqon hal mar haday karto si tartiib oo raaxo leh inay soo kartaa la rabaa. qof walba sokorta qiyaasta uu jecel yahay asagay ku xiran tahay. aniga qiyaastan ayaan jecelahay waan aqaana saaid maaragtay sokor saaidana ma ahan mana ku yaro. waa qiyaas yar oo macaan oo la cuni karo. qofkii laakiin macaan saaid rabo oo ku darsan kara qiyaasta adiga jeceshay. laakiin inta inaan tijaabisiin ayaan ka jecelahay waayo inta haddaad tijaabisiin cabirkan weligiin maaragtay waa xafidi doonteen saan le u karsan doonteen waayo qiyaas yar oo macaan waa. idinka mideen inaan kaamirada u jeedin asxaabay inay soo karooyaan. meesha waxaa noogu haray subagii keliya noogu haray. subaga markay bislaataan korka uga darsanayna wax yar. marka soo socod wanaagsan. ashaan hadii lagu daro ayada caraf ka dhigayso macaan u yeelaysa dhadhan fiican. ma u baahna maxaa la dhahaa heel ma u baahno ma u baahna maxaa la dhahaa carfiso ma baahno. intaas keliya aan ku darayaa. يا سلام عرفتي ما قياسي كرتان ما شاء الله
geedin way dhadhowdahay soo adkaanaysa. asxaabay inay jilicsan tahay moodin, laakiin hadhow tartiib waxay ku adkaanaysaa talaajada. haddaan intaan ka adkeeno soor ee camal ay noqonaysaa. marka ma rabno talaajada inay ku dhegtaan rabna, ma rabno inay inta maaragta ku dhegto, dabka inay nooga adkaato ma rabno. intaas hadda maasha allah way ku filan tahay. yaa salaam, aad ayay u macaan tahay. ujeedina u malaynaya wayna karaysaa. wax badan inaan karino ma rabno, hal maraan rabaa inay soo karto huf soo tiraada. intaas ayaan uga haraynaa asxaabay. waxaan ku daraynaa hal jab oo subag ah. subagga wuxuu ka celinayaa inay labeen yeelato. markaasaa wax yar koobabkan ku shubi lahayn ayaan soo diyaarsanaynaa. asxaabay kuwana bakeerida ayaan soo qaadanay. waxaan rabaa inaan ku shubo marka. dadkaas ayaan ku cabiranayaa. marka hore halhalaan ku shubaya, waayo wax kale aan rabaa korkeena uga sharaxdo. marka intay ii geertaan arkaya.
waa iska soo nadiifinaynaa wixii geesaha aan ku halhaleynay. marka asxaabe waxaan rabnaa inaan samaysano part 2. halkan waxaan kusoo qaatay maxaa la dhahaa mirahaas ma aqaan af Soomaali wax lagu dhaho laakiin anaga Swedishka waxaan dhahnaa hallon tooth furaha la dhahay yaha umaleyn miraha la dhaho yaha umaleynaya ma aqaano biyar aan kusoo darsanayna insha Allah. ku darsanayna hal qaado oo sokor ah. hal qaado sokor ayaan kusoo darsanay. waxaan kaloo ku darsanaynaa hal qaado waranka. intaasaan isku soo karinaynaa. asxaabe wax yar sokor kaleeto inuu u baahan yahay ila ekaatay waayo baalkan mirahan waa dhanaan saaid ay dhanaan u yihiin. haas qaado sokor aan ku sii darayo. Geedina malena waa soo karo. saas ayuu noqday gaduudkaas ka rabaa mafahanta. mirahan lafa yaryariis mira yaryar ay leeyihiin haddii aad maaragtay ilmo siinaysid inaa marka hore inta asaga kelisid aad soo miirtid roon laakiin anaga maadaama dad waaweyn aan ugu talagalay waxa waaye dadka waaweyn waa ama ruugi karaan ama waa iska tufi karaan.
marka miraha haalisana ma aha, waa wax yar yaroo miraha faroolada camal uu leedahay iyadana. markaas ayaa sinaa maasha allah hasaa ka rabaa majeedaa sida isku noqotay. weli dhanaankeedana wuu joogaa. subaga ahaan ku darsanana intaasaan uga degsanayna asxaabay, wax yar ha noo qaboobo. asxaabay qaybtii hore aan idinla sameeyey waa tana, qaybtii labaad aan rabaa hadda inaan idinla wadaago. waa soo miiray asxaabay, mirahooda saaid u badnaayeen, waa soo miiray. waxaan isir ma fiicna miraha inaan ka miirtaa roon, marka waa soo miiray. qayb gaduud iyo qayb waxaan ka dhigi rabaa maxaa la dhahaa cadaan ah. kaasaa guntii gabagabadii asxaabay waan soo diyaariyey. saasay noqdeen kuwaasa maasha allah tabaaraka allah. waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan, waayo macmacaanka labaniyada noocan oo kaleeta inta badan waxaa lagu daraa maxaa la dhahaa gelatin aa lagu daraa. anagana gelatin ma cunno, marka gelatinka sidaan uga maarano saas ayaan u sameeyey. aan jeclaystay walaalahay inaan la wadaago. okay waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin asxaabay. like, comment, subscribe waa xagiina. intaas ayaan uga baxaynaa maanta maxaa la dhahaa barnaamijkeeni. is arag dambe oo xiisa leh asxaabay. asxaabay waa ka saacbaan markay soo qabowday waashii saasay noqotay. waa ujeediin mana jilacsano mana adko, waana hortiinaan ku dhadhaminayaa insha allah. kaasa bismillaahi raxmaani raxiim. walahi lagama sheekey karo maasha allah tabaaraka allah. waa kaasa ujeediin ma jilacsano, kareen yaroo macaan oo qurux badan oo dhadhan la ayay noqotay. waxaan rajeynaa inaad ujeediin waa kaasa ma isku milmayaan, xataa gaduudkiina goonidiisa u dhigay, cadaankiina goonidiisa u dhigay. waxaan rajeynaa asxaabay inaad ka heli doontiin. intaasaa maanta labaniyadeeni saas ayaa noogu soo baxday. ka faa'iideysi waan asxaabay. intaas ayaan uga baxay. maca salaama fi amaanillah.